السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان جامعة نوح أيان دلد mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee maanta la isku weydiiyo dunida gaar ahaan goobaha wax lagu barto waxa ka mid ah waxay faahfaahin mashaakilka soo wajaha iyo ka falcelinta dareenada farxadeed iyo caqli badan haddaba waynu eegi doonaa waa maxay ama waatee xubinta qaabilsan caqli badnaanta iyo caqli yaraantu dabcan waa maskaxda aynu maskaxda ku horeyna haddaba wiilasha sida caadiga ah madaxoodu wuu ka weyn yahay gabdhaha mana aha hadal aynu iska leenahay daraasado badan ayaa sidaas sheegay weliba 13% xajmiga maskaxda raggu wuu ka weyn yahay xajmiga maskaxda dumarka intaas oo qura ma aha unugyada maskaxda sida amygdala iyo hippocampus waxa ku badan ragga unugyadaas oo ka qayb qaata caqli badnaanta iyo fahanka taas micnaheedu waxa weeye in wiilashu ka caqli badan yihiin dumarka maadaama ay ka maskax weyn yihiin jawaabtu waa maya tusaale haddaynu soo qaadano maroodiga caqligiisu wuu ka weyn yahay caqliga ninka haddana kama caqli badna ma jiro wax xidhiidh ah oo uu caddeeyay saynisku oo ka dhaxeeya xajmiga ama sayska maskaxda iyo caqli badnaanta maamulaha jaamacadda Harvard Lawrence Summers ayaa ku sheegay mid ka mid ah khudbadihiisii in raggu dumarka kaga caqli badan yihiin majaaladda ama qaybaha xisaabta iyo sayniska waxaana uu muddo yar kula kulmay cay iyo aflagaada xad dhaafa waxaana lagu soo eedeeyay waxa loo yaqaano eexda jinsiga inaad jinsi gaar ah u janjeersataana maanta dunida waxay ka tahay eedayn ka xun in xitaa cunsuriyad lagugu eedeeyo waxaana la iska qaadaa ganaaxyo lacageed oo badan haddaba maxaa ku kalifay inuu hadalkan yiraahdo nin aqoon-yahana oo jaamacad weyn maamulo ka ah waxaa ku kalifay hadalkan imtixaanka labka iyo dhadiga ee SAT lagana leeyahay Mareykanka kaasoo ah imtixaan lagu eegayo cidda fiican wiilasha iyo gabdhaha dhinaca xisaabta waana imtixaan lagu qabto 43 dawladood imtixaankaas ayaa wadamadii lagu qabtay 36 wadan oo kamid ah waxa lagu cadeeyay in raggu kaga fiican yihiin dumarka xisaabta toddobada kale ee soo hadhayna waxa lagu sheegay inay siman yihiin waana meesha uu ka keenay maamulaha Harvard kalsoonida uu ku yiri hadalkaas haddaba intaynaan odhan raggu way ka caqli badan yihiin dumarka maadaama ay kaga fiican yihiin xisaabta waxaad ogaataa in imtixaanka SAT ee isbarbardhigga labada jinsi ee dhanka maskaxdu aanay ahayn halbeeg cilmi ah oo sugan markii laga dalbaday Lawrence Summers maamulaha jaamacadda Harvard si uu hadalkiisa u caddeeyo inuu soo bandhigo tirada dumarka iyo ragga macallimiinta ka ah jaamacaddiisa wuu diiday laga yaabaa inay dumarku ka badnaayeen ragga taasina ay ku keeni lahayd in hadalkiisu iskhilaafo caalimkii weynaa ee reer Germany Friedrich Gauss wuxuu ahaa sanado badan tusaale loo soo qaato in raggu ka caqli badan yihiin dumarka maadaama uu cilmiga xisaabta ku soo kordhiyay qaybo badan waliba uu xaliyay masalooyin xisaabeed oo aad u adag sidaas oo ay tahay arrinkaasi ma uu sii socon maadaama ay saaxadda soo fuuleen dumar badan oo khabiir ku ahaa xisaabta dunidana kaga yaabiyay ilaa hadda waxaynu fahanay inaanay jirin aragti cilmi ah oo caddaysay cidda caqliga badan labada jinsi iyadoo ay taasi jirto haddana labadooda cidda caqliga badan waxay mashaakil badan ka dhex abuurtay fursadaha shaqada iyo helitaankooda tusaale ahaan waxa jira maamulayaal shirkadeed oo aad u badan kuwaasoo aaminsan in maskaxda dumarku ka hooseyso ragga waxay u diraan ragga oo qura hawlaha u baahan caqliga sidaasna waxay ku dulmiyaan haweenka haddaba yaa caqli badan labadooda wali su'aashaas kamaynaan jawaabin mararka qaar si su'aashaas looga jawaabo malaha waxa habboon in la weydiiyo carruurta yaryar maadaama ay daacad yihiin oo aanay cidna u eexanaynin taasina waabay dhacday hadda ka hor waxa daraasad la isugu keenay 96 carruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana la tusay mid kasta laba sawir oo laba iyo dhadig ah waxaana la weydiiyay midka caqliga badan ilmo kastaana jinsiga uu ahaa mooyaane jinsiga kale ayuu sheegay inuu caqli badan yahay
micnaha habluhu waxay sheegeen in wiilashu caqli badan yihiin inamaduna in habluhu ay caqli badan yihiin daraasadaas haddii aynu soo koobno kaliya waxa lagu ogaaday inaanay lahayn jawaab cad cidda caqliga badan labada jinsi laakiin ay tahay waxa loo yaqaano afka qalaad stereotype af Soomaali ahaana sawirka mala-awaalka ah taasoo ay tahay in qofka jawaabtiisu ku xidhan tahay waxa uu aaminsan yahay afkaartiisa iyo caadooyinka deegaankiisa laakiin aanay ahayn xaqiiqo cilmi ah tusaale kale haddii aynu ku sii jilcino qodobkan shirkadda Google waxay sheegtay in waxa ugu badan ee aabayaashu ka raadiyaan Google-ka uu yahay wiilkaygu ma caqli badan yahay halka hooyooyinkuna ay inta ugu badan ka raadiyaan su'aasha ah inantaydu ma caqli badan tahay mid kastaaba inuu jinsi u janjeersamo waxa keenaysa waxa aynu ku sheegnay sawirka mala-awaalka ah sawirka mala-awaalka ahina kama jawaabo ragga iyo dumarka yaa caqli badan oo kaliya laakiin wuxuu ka jawaabaa waxyaabo kale sida maxay dadka qaar cunsuriyiin u yihiin tusaale ahaan sawirka mala-awaalka ah ee ay aaminsan yihiin Mareykanka cadcad waxa weeye inay Mareykanka madmadoowi ka dhaqansan yihiin kana dambiye badan yihiin iyaga si kasta oo ay daraasadaha iyo tirakoobyadu arrinkaas u diideen haddana waa waxay iska dhaadhiciyeen iyadoo ay jirto in Mareykanka cadcadba ay ka buuxaan dhaqamo iyo dambiilayaalba haddii aynu soo koobno fahanka waxaas aynu soo sheegnay oo dhan sawirkaaga mala-awaalka ah ayaa keenaya janjeerkaaga aad u janjeedho jinsi gaar ah qabiil gaar ah ama waddan gaar ah haddaba halkii aynu isku dawaqin lahayn yaa caqli badan labada jinsi aynu ku dadaalno inaynu hagaajino sawirkeena mala-awaalka ah iyo fakarkeena dibna aynu ugu noqonno aragtiyaheena iyo waxyaabaha aynu sabab la'aan isaga aaminay diinta islaamkuna waa diinta ama meesha saxda ah ee ugu hagaajin karto waxaad aaminsan tahay waayo Ilaahay wuxuu leeyahay laqad khalaqnal insaana fi ahsani taqwiim muu odhan ragga waxaanu abuurnay sida ugu fiican ama dumarka waxaanu abuurnay sida ugu wacan laakiin si guud ayay aayaddu basharka uga hadlaysaa gabagabada mawduuceena waxa jira isbeddello yaryar oo ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku iyo sida ay dumarku ugu fiican yihiin haddii ay meel soo galaan inay si fudud ugu fiirsan karaan wax kasta oo meesha yaala ragguna ay ku wacan yihiin kala habaynta hawlaha iyo inay shaqo walba gaarkeeda u qabtaan iyo waxyaabo kale oo la mid ah kala duwanaanshahaasina ma jaangoynayo heerka maskaxda labada jinsi kaliya waa kala duwanaansho yar aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum